weeraryahanka Faransiiska Karim Benzema ayaa dabcan rikoor gaar ah sameeyay kulankii Real Madrid 4-2 kaga badiyay naadiga Almeria ciyaar ka tirsan La Liga Spain kadib markii uu ku tuurtay 3-2. Benzema waxay kaga dhigan tahay haatan wuxuu noqday taariikhda ciyaaraanka afraad ee dabcan La Liga Spain ugu goolasho badan wuxuuna dhaafay Hugo Sanchez legendiga hore kooxda Real Madrid asigoo Benzema shabaqa gaarsiiyay La Liga Spain muddada ku sugan yahay 236 gool waxaa ka badan oo kaliya marka la fiiriyo ciyaartooyda caanka ka mid yihiin Lionel Messi horyaalkan dabcan ka dhaliyay 474 gool oo ah taariikh ahaan ugu goolasho badan La Liga Spain. Cristiano Ronaldo asagana shabaqa gaarsiiyay 312 gool La Liga Spain iyo Tal Mazzara oo shabaqa gaarsiiyay 252 gool. Sidaa darteed Benzema wuxuu noqon legend weyn oo taariikh ballaaran kaga tagaya Faranji Ligue 1 maadaama ninkan haatan da'da ay haysa laakiin mar ka dambe sanadii ugu dambeeyay iyo markii uu bixisay Arsenal 2018 wuxuu qaatay mas'uuliyadda dhanka gool dhalinta Madrid iyo sidoo kale shakhsiyadiisa noqday mid ka mid ah ciyaartooyda caalamka ugu tayada wanaagsan asigoo sanadka hore xitaa ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or. sidoo kale kulankii Madrid 4-2 kaga badiyay kooxda Almeria Benzema waxa uu suura gashay inuu noqdo ciyaaraanka labaad ee dabcan ka tirsan kooxda Real Madrid ee u suura gasho muddo bil gudaheeda 3 hat-trick ama 3 kala duwan shabaq inuu gaarsiiyo dhammaan tartamada kala duwan maadaama Benzema bishan Abriil gabagabada u suura gashay 3 kulan oo kala duwan min 3 shabaq inuu gaarsiiyo ciyaaraankii ugu dambeeyay sameeyay wuxuu ahaa Cristiano Ronaldo oo dabcan May 2015 sameeyay marka Benzema waxay kaga dhigantahay marka 3 uu ku toorto ama goolal uu shabaqa gaarsiiyo wuxuu sameeyay rikoor gaar ah mid kamid ah weeraryahanada caalamka ugu bandhiga fiican yoolkiisana uu yahay xilli ciyaareedka inuu sii wato goolashiisa ayadoo Madrid wali kulamo harsan La Liga Spain sidoo kale UEFA Champions League baaqi ku yihiin dhinaca kalena ay joogaan finalka tartanka loo yaqaan Copa del Rey. haddaba aragtidiina ka dhiibta Benzema oo noqday taariikhan ciyaaraanka afraad ee ugu goolasho badan La Liga Spain.